haddaad Man United jeceshahay kaafir Man United jecel baad haddaad Liverpool jeceshahay kaafir Liverpool waa magaalo ahaan dhib male laakiin maxay tahay hadda waa koox Man City iyo Man United waa magaalooyin laakiin kooxaha matalaya kooxdii shaytaanka gaduudan la baxay ayaa tiri taageeraan u ahay waa jecelahay mid ka mid haddii wax gaaraanna caawa madax xanuun baa ku qabanaya wallaahi dhagahaygaan ku maqlay wiil dhalinyaro Soomaaliya oranaya mid kale u hanjabaya David Beckham baa iga jaban u dhaad laakiin markuu David Beckham isoo kabmo ilaahay idankiis ay arki doontaa waxaan kugu dhigo masaladaasi masala khaldan way wadaadka fatwada uu fatwoodana baatil way waxba kama jiro masalada jacaylku waxay qaadataa xukunka sababta waxaa jira gaalo jacaylkoodu sharcigu u ogol yahay laakiin waa jacayl dabiici ah oon ahayn jacayl diineed laakiin qofka haddaad ku jeclaato dembiga iyo macsiyadiisa hadduu muslim yahayna waa dembaabi hadday gaalnimada aad ku jeclaatana iyo diintiisana dee waad ku gaaloobi sharcigu marka koowaad wuxuu baneeyey ninka muslimkii inuu guursado naag ahlulkitaab oo yuhuud ama kiristana ilaahna wuxuu ku tilmaamay labada isguursanaysa wajacala baynakum mawaddatan wa raxma naxariis iyo kalgacayl buu ilaahay dhexdiina dhigay ninka muslimkee loo ogolaa naag gaala inuu guursado ahlu kitaaba xaaskiisa iyo naagtiisa inuu jeclaadana loo ogolaaday oo ilaahayba ka dhigay mawaddatan wa raxma hadduu ku gaaloobayo wax lagu gaaloobaya looma ogolaadeen waxaa labaadoo sharcigeennu faray waalidka in raxmad iyo dabacsanaan lagula dhaqmo waalidka jacaylkiisa maxabada dabiiciga ah qof uu jecel yahayna waalidku gaalay noqon karaan ilaahay baa yidhi wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tutichumaa wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufan adduunyada si wanaagsan ugula saaxiib macsiyaha ka yeelin dee gaalnimana kuba jeclaan maysid oo muslim baa tahay laakiin waalidkii ilan dad baa soo islaamaya oo waalidkood ay gaalo yihiin walaalahood gaalo yihiin qaar baa ilmahoodii gaalnimadii kaga harayaan wixii xiriirinta raximtinimada ahaa iyo jacaylkii dabiiciga ahaa ee waalidnimo waa la ogol yahay sharciga adigoon mid diineed ahayn masaladuna waa masalatu lwalaa walbaraa waxyaabaha noocaas oo kale taageeridooda iyo muxuu ahaay waa ya imaa hadday macsiyo tahayna waa macsiyo waxaad ku taageeraysa hadduu kufri yahayna kufri buu markaa gaari karaa lama se itlaaqi karo lama dhihi karayo ruuxii fanaaniinta iyo kooxahan ciyaara iyo ruuxii taageera ama koox ka mida taageera waa gaaloobahaya diintu ka baxaya lama itlaaqi karayo waxay ku xidhan tahay nooca taageeradu maxay tahay waxay ku xidhan tahay waxa uu ku taageerayo maxay tahay laano dad badani waxaa laga yaabaa inay isagaba taageersan yihiinba ama banooniga ay ciyaarayaan ama waxyaalaha dembiyada ay ku jiraan oo gaalnimo aan gaadhsiisnayn marka wixii aan gaalnimo gaadhsiisnayn dadka laguma gaalaysiin karayo oo waa in masalada tafsiil la geliyo oo la kala qaadqaado waa